بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa yuusuf cali geedi waxaan ka tirsanay bahda nabadda iyo cadaaladda sida aan oga barateenba waxaa idiin soo gudbiyaa barnaamijyo yaryar oo isugu jiro qoraallo iyo fiidiyoyaal yar aan soo duubay waxaan uga hadalnaa markasta nabadda iyo cadaaladda dadka soomaalida haddaba maanta barnaamijkeenna waxaan uga hadlaynaa arrimo ku saabsan maamul goboleedka galmudug intaa marka guda gelin arrimahaas waxaan rabaa ta hore inaan wax yar oo hordhaca aan ka hadlo federaalka soomaaliya sida ogtihiin waxay qaadataa federaal dowladnimadeeda waxay ku dhislaan doontaa federaal macnaha federaalkana waxa waaye maamulkii dowladnimo ee dal dhan lahaa oo la qeybiyey oo loo qeybiyey qeybo badan laamo badan iyo dowlad dhexe haddii la raaco marka qaabka uu federaalka yahay dalka waxay u horseedaysaa horumar wanaagsan inuu ku tallaabsado horumarkaasna waxay keenaysaa inay dadkii wada faa'iidaan oo waxaa ka mid a magaalooyin badan dhismaayo gobollo badan dhismaayo degmooyin badan dhismaayo dadkii ay waa nafisayaan waana kala nasanayaan sidaa ogtiin soomaaliya waagii hore magaalooyinkii dhisnaa oo wax faa'iidada lahaa waa yaraayeen hal ama laba iska ahaayeen oo dadkii u soo aadi jireen ilbaxnimada ama aqoonta ama shaqada ama waxbarashada ay ka raadin jireen laakiin markii la raaca sida federaalka u yahay magaalooyin badan dhalanaayo dad badanaa soo baxaayo magaalooyin badan horumaraayo dadkii levelkooda waa kala kaca qof walba banaanka dhulkeedii ku helaysaa magaalooyin badanoo teela imaanayo marka dad badanoo teelaa soo baxayo haddii aan raacayna wuxuu keenaya dadka inay kala qaybsamaan qabiil isku dagaalaan dhulka isku qabsadaan deegaanka isku qabsadaan iyo waxyaabo kaloo xun allah marka tan xun nooga korsho tan fiican allahna waafajiyo marka maadaama federaal laga dhigay dalka soomaaliya 5 qaybood ayaa loo qaybiyey qayb ka mid a waxaa loo bixiyey maamul goboleedka galmudug meesha marka aan ka dhalinayn waxay tahay maamul goboleedka galmudug waxaa hortaagan caqabad inay og yihiin iyo in kalena allahu aclam iyo inay iska dhigatiraayaan sideedaba waxaa jirto markii maamul la dhisaayo oo weliba khaasatan hadda soomaaliya laga dhisaayo waxa ka hor imaan kara maamulkaas waxay noqon karaan ugu muhiimsan waxa ka hor imaan karo waa laba caqabadood labada caqabadood ugu muhiimsan ka hor imaan karto waxay kala yihiin caqabad xaq ah oo maamulkaas iska dhigatiraayo oo u dhinac maraayo iyo caqabad xaq darro ah oo maamulkaas lala soo aadin lagu dumiyo marka maanta galmudug talaysata waxay tahay caqabad xaq ah oo ay iska indhatiraayaan iskana dhigatirayaan haddaad fiirisidna aad silada dadkan maba ogaba caqabadda miya ayaga oo macnaha dad fiican oo shaqeynaya inay yiraan ka fahmay haddana aan caqabadda abbaaraynin markii maamulkiina waxaa ku nacfinayo ummaddii oo dhan marka caqabaddaas hortaagan maxay tahay waxay tahay markii la dhisay maamulka galmudug oo la magacaabay oo la doortay caqabada asaga ka dhex timid dadkii waxay dhaheen looma dhammo qolo kamida maamulka oo deganeed magaalo kamida gobolka galmudug oo nin la yirahdo oo aad u fiican sheekh shakiir uu hogaaminayay aa la yidhi waaye kaa diidan waxaa lagu guulaystay inuu lagu soo daro oo kamid noqdo waa la magacaabay dowladkaa loo sameeyey markii xoogaa dhaqaaqday dhulkaa wax u galeen oo socoweysa markaan haddaan bahda nabaddii cadaaladana aan daraasaadin waxaan aragnay inay caqabadda hortaagan oo maamulkii markaa fiirsana aada u malayninba inuu ahayn dad xun laakiin haddana caqabaddii ay ag maraayaan oo xaq ahayd oo hortaagneed marka caqabadda maxay tahay waxaa marka maamulka laga rabaa galmudug sideeda markaa maamul cusub tahay oo haddana khaasatan hadda lagu aabul aad tahay oo soomaaliya laga dhisay xisaabta ugu koowaad ku darso qaabka lagu doortay waa qaab qabiil ah ku timid labo dalka lagu doortana waa dal 30 sano aan dowlad lahayn oo maamulba u ka jirin saddex waa haddana dal nidaam aan la aqaanin oo cusub hadda qaatay oo federaal la yidhaah dadki marka maxay kaa rabaan waa mustaqbalkoodii dowladnimadii iyo maamulka ay ku noolaan lahaayeen ku shaqaysan lahayen ku baran lahaayeen ku nabadgeli lahaayeen ku jeclaan lahaayeen horumar ku gaari lahaayeen marka haddana soomaalida dhulka ma tihid waxaa lagu yiri maamul waxaa taa lagu yirahda federaal oo galmudug 5 ilaa 6 qabiilaa degan xuduudda eelada galmudug marka maamulku wuxuu agmarooyaa maxaa marka lagaa rabaa maamul fiicanaan dhisaa nabad aan rabaa cadaaladaan rabaa horumarka inay gaaraan iyo nastaan rabaa markii lagu yidhaahdo waxaa waaye kow dib u heshiisiina bilaabe maamulku waa la dhisay waxaa laga soo xulo qabiilkii qaab qabiilaa la maray oo lagu qeybiyey awooddiisii perfect waa muxumo oo hadda xal kale ma leh laakiin maxaa la rabaa inaad shaqadii kula laabato dalkii dadka deganaa
marka maamulku waa agmarooya. waxaa laga raba xitaa inuu intuu isku yimaado oo dadkii deganaa muxuu ahayto gobolka galmudug la yidhaha xuduuddaas ku dhex jiray qabiil kasta oo degan oo dadka u waco oo hotoora u yidhahdo haye maamulkii gobolkan loo dhisaanahay oo federaalka ah oo aad dadkii oo dhan isku wacdo qabiiladii ahaa ammaantay adigoo adeegsanayo dadkii deegaanka dhahaya aa isku wacdo culammadii wacdo aqoon-yahankii wacdo akhyaartii wacdo cuqaashii wacdo haweenkii wacdo nooc kasto ah dadkii aa wacdo dhallinyaradii ardaydii aa wacdo ilaa kuwa dhahaaya maahe hor annaka dadkaas aan walaalahaynaan wakiilana waxay soo saaraan aanan ogolnah waana dad saasoo runaha jiro soomaaliya waana dadka maanta wanaagooda ee soomaaliya wax ku taaweli kuwaas basaa ka tegay inta kalea isku keenay haye dadkiioo maamulkiyaan nahay galmudug loo soo doortay adinkaana waxaad tihiin dadkii dhulkan deganaa ee maamulka rabay ee wax ku naxfin lahaa marka waxaan rabnaa maadaama maantay irid di aad tihiin adinka oo dalkan iyo gobolkan ku dhismi lahaa soomaaliyana ay faa'iida ugu noqon lahayd ya inaan maantii aan gobolkan dhisno oo maamul aan u sameyno oo aan daacad isaga nahay oo aan raalli isaga nahay oo aan kulligoon fadhino oo aan wixii aan u aragno inay liidid ama yasid ahna aan iska reebno wixii aan u aragno inay namadeehayaana barwaaqana gaarsiihayaanna oo dowladnimo fiican iyo maamul fiican oo dhisayana aan dooranno sharci saasna aan samaysano af soomaali waa naqaanaa waa qornaa waa akrinaa maantay aan qorno waxaana ku heshiino sharci ka dhigano akhrisano markii waxaa ognoo xaqa nin iyo naag islaameedoo adduunka meel kale kaaga yimid ha sugin inay intay dalkaaga yimaadaan ay ku dhisaan maamule haasha intaad tirahayd aa seexatid qofta laga rabo adiga waa marka intaasaan rabnaa inaan isugu keen wacnay waa og tihiin dalkan waa baaba'ay waa laisku laayay xuquuq male dadka waa isdhacaa waa isdilaa inaan kala nabad galno oo maamul nabad la aan samaysano oo aan isyasin oo aan qabiil isku nicin oo aan deegaanka horumarino oo aan barwaaqo galno oo aan waxbarasho samaysano oo aan dadka soomaalida waxay ka faa'iidaan kale aan u samayno oo aan wanaag iyo horumar aan gaarno oo aan maamul taya leh oo annaka aan qorno aan rabnaa sidaa og tihiinna nabad iyo cadaalad kasto caalamka ka jirto waxay ku salaysan tahay dhaqanka iyo deegaanka dadka iska leh marka laisu keeno nabad iyo cadaalad ay laga soo dhex bixiyey qaab nololeedka dadka soomaalida ay ka mid ahaanaya marka sharciga markii dhib kasta oo waddanka jiro xal waxaa u keeno dadka iska leh dadka isku dhib maaha qoloba dhib nooca haysto marka xalka dhibka jiro oo soomaalida haysta ay marka laga rabaa inay xalkiisii ay sharciga ka dhigtaan marka galmudug wixii dhibkeenna ah marka aan sharci ka qoranno wixii faa'iida noo ahna aan wada samaysano sidaas marka ay maamulka galmudug marayaan maalin kasta ay samaynayn markaa fiirsana dad rabo waaye marka waxaan igula talinaynaa gobollada kalena inay saas ugu shaqeeyaan nabadii cadaaladda oo aas-aaska waxa la yidhaahdo waa muhiim waxaan hoos laga bilaabin ma fiidayaan mana hoosna ma dhalinayaan khayrna ma keenayaan marka dadka waa la kala dooransiinaa waxaa loo sheegaa dhibka lagu jiro in qabiil laisku dilo in laisnaco in diinti ururo badan oo diimeed lala baxay in diinta laisku dilaayo in laisku dhibaayo aayadihii qur-aanka iyo cilmigii islaamka laisku dhibaayo in ururo lakala in dadka la kala qeybiye yaa soo haraya marka qof dadka noqaaya marka oo isdilayo isdhaxayo isxoogaya weligood nabad heli maayaan nabadina intaas ugu xigtaa afkii aad taqaanaa waxaad taqaanaa dowladnimadina waa u weynaanaysaa waa kaasaa berri cadaalada imaanayso tusaale fiiri maanta haddii dhulka galmudug uu roob ka da'o kulligiis hal qabiil uu roobkaas ku da'a oo ka nacfiyahay maya dadka dhanaa ku nacfiyahay iyo dhulka iyo deegaanka iyo xoolaha alxamdulilaah alle nicmadaas ilaha keena markaad maamul wanaagsan samaysana saasaa dhulka dhan alxamdulilah dadkay u leeyihin ilaahayna naxariista waa soo shuba cirka iyo dhulka waa soo bixiya ya barwaaqada galayaan dad kaloo soomaalidana waa ka faa'iidayaan federaalkana faham maamul goboleeda ha fahmaan maaha qofka soomaaliga in laga xigo dhulka la kala xigo laakiin waxaa lagaa rabaa meesha maanta joogto federaalkaaga u yahay inaad wanaaggeeda ka shaqayso haddaad ka shaqayso aad meeshaada ahaynna ka shaqaysa
maadaama aad ku noolaa karto dalka soomaaliya meel kasta oo ka mid a waxaa lagaa rabaa meesha aad maanta joogto ha fiirinin qaabka laisku sameeyey faham maskaxda ka shaqaysii oo ku cibaadeyso wanaagga aan kuu sheegayo oo nabadii cadaaladda ah meesha aad joogto maanta wanaaji meesha aadan joogin aa wanaajisa markaasna berri haddaa berri galmudug ka guurto oo jubbaland aad degto ya adaa iskala wadii kartaa ku noolaan kartaa ka shaqaysan kartaa wax ka baran kartaa wadii kartaa dhul soomaaliya waay kii jubbaland degnaana galmudug wadii karaa oo ku noolaan kara wax ka baro ka shaqaysan karaa cadaaladda marka galmudug ku sameey kala shaqee dadka inay kuwa kaloo walaalaha helaana ka shaqeey dariiqaasna hala maro oo hala wanaajiyo wax magacaygu waa yuusuf cali geedi waxaan ka tirsanahay bahda nabad iyo cadaaladda wixii qaldanaayo ku aragteen fideoga waa qalad aniga dhacay wixii wanaagsanaayo aragteenna waaba intaa igu talagalay inaad ka faa'iidaysatiin wabillahi tawfiiq maalin wanaagsan